walaalayaal sanadka markuu ahaa 1920 tuulada la yiraahdo Minshaah ka tirsan muxaafadad Soohaaj gobolka Soohaaj oo Masar ku yaalo waxaa ku dhashtay wiil yar wiilkaasoo taariikh ka tagi doono baran doono cilmiga ugu sharaf badan wiilkaas markiisa horeba wuxuu ka yimid family diin leh cilmigaasna ku dadaalo haddaba wiilkaas yaa waaye walaalayaal ninkaas aan rabnay inaan ka sheekeyno waxaa la yidhaahaa maxamed sidiiq alminshaawi waa wada naqanaysa u malaynahay qof kastoo qur'aan dhageysta ninkaas wuu yaqaanaa macallin kastoo dugsi dhigana wuu yaqaanaa ilmo kastoo dugsi aadaana way yaqaanaa ninkaas محمد صديق المنشاوي 20 جنوري سنة كان مركو أها 1920 وافق سن 1600 هجرية وحو كدشتي عائلو لغو يقان دينتا قار أهان قرآنك آبهيس وحو أها حافظ كمقالة oo laga yaqaan saciid masar meesha baadiya saciid dadka la yiraahdo laga yaqaan aha awowgiisa maxamed sidiiq al-minshaawi awowgiisani sidoo kale aha nin sheekh oo quraanka yaqaan ku takhasusay ayuu ahaa hada shibli min ذاك الاسد hada maqashid libaaxa weyna dhalay way macnihiisa cunugan wuxuu ku soo tarbiyay marka caa'ila kulligeeda sidoo kale quraanka هذا كهرا قف وحال ويدي شيخ الإسلام ابن تيمية ساسو كلو أها وحول شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ أها أبي سنة شيخ أها أووجي سنة شيخ أها وحول أووجي سوحو أها يرحدك أبيه سنة وحو نقضو يرضيح أما بال أسيجان وحو نقضو الشمس محمد صديق المنشاوي سيدو كلو أسيجان أووجي سوحو أحدك أبيه سنة وحو أها بال أما ضيح أسيجان وحو نقضي قرح adduunka muslimiinta dhan wada aftiimisay sida lagu yaqaan waalidiinta wanaagsan markay soo weynaada caruurtooda isla markii waxay geeyaan dugsiga geeyaan maxamed sidiiq al-minshaawi markuu soo weynaaday wax yar isla markii dugsiga la geeyay quraankii dhaqso xafiday exact no mashina meeqa sano uu jiri markuu xifdiyay taas lama sheegin laakiin yaraan uu ku xifdiyay cod fiican uu lahaa dugsigiisa marka dadka ugu saro ahaa wuxuu noqday macallinkiisu wuxuu u noqday gacanta midig ama kabiir saanaqaan uu noqday aabihiisana waxaa lagu yaqaanay sheekha magaalada inuu yahay oo markii la sameeyo sahra quraaniya markii la sameeynayo wuu ka qayb gali jiray dadka Masar imaaday ayaa garanay Masar waxay leeyihiin samra quraaniya wax la yiraahdo habeenkii oo kala meel la isu imaana kura meel weyn la sameeyna xaflad ahaan way laakiin quraan la lagu aqriyaa marka maxamed sidiiq al-minshaawi aabihiisa meeshaasuu marka quraanka ka aqrinay habeenada kamid marka waxaa dhacday maxamed sidiiq al-minshaawi cunug yar jaanis la siiyay marka ilmaha aqrinaya aabihiisa markuu aqriyay dadka weyn aqriyay marka caruurta yimaadaan aqriyaan Allah wuu yimid wuu aqriyay markuu aqriyay waxay noqotay mucjizo intii meesha joogtay dhan hal mar yaabeen waxay dhaheen cunuga mucjizo min Allah أول مرة شيخ محمد صديق المنشاوي مركا ومقالة عان كان نقضي ما دام قرآن كاسو يقان مقالة أنا والو الشيخ شيخي أبيس مركو حب لابينو آدو وسيد دالو قرآنكم مركا آدو برتي إلى مركا دم كبير رسمي وكان نقضي دوكسي كيسا طبعا محمد صديق المنشاوي معلن كيسا كبير ونقضي تولا وحبا لقا ما برتو وحو قرآن صدي مركا إنو يماذو قاهرة طيب قاهرة يا كان أي أبي الشيخ مقالة دواي أدير كيسا سوكحي وحو كاني مركز إسلامية أما جامعة أيو كاني أزهر وحو قالي قيبت علوم القرآن أيو قالي قرآن كأيو برتي وكو تخصصي إجازات وكو قاتي قرآن كيو نعمل كو تخصصي دادكي بعدين إيكا برتين وحو بالله مركا إنو أقريو شيخي مركا وحو نقضي شيخ عان خوغو تولدن والاقي يقاني نين قرآن عد معانا ونقضي أرضي دادكو أغو سريو نقضي مركا وحو بالله مركا مربا ميل إنو آذو وقرآن كأقريو مساجد كانوا كأقريو مرة من القرآن كأقريو شيخ محمد صديق وحو كمد نقد مركا علوم ذواوين أو مرجع النقد قرآن كقاهرة
iyo masar oo dhan caalim weyn uu noqday. culammada waaweyn waqtigaas joogeen xusari iyo banna iyo cabdilbaasit iyo dadkaas oo kale ka mid noqday. bal codkiisa cod wuxuu ilaahay siiyey nicmo min allah oo qof kale aan haysanin ayuu siiyey. ayib ninkii markuu gaaray xadkaas gaaray meel lagu tartamaa jirta idaacat qur'aani alkariim oo qaahira ku taalo. qofkii qur'aanka ka sajisho macnaheeda waxaa waaye qof culus waay. laakiin qof kastoo meeshaas galo waxaa laga qaaday imtixaan. rag waxaa imaanaya jahaabida macallimiin oo qur'aanka soo cabay ayaa imaanaya. cunugii marka sheekh kasta ahaada meeshaasaa lasoo fariisanaa oo imtixaana laga qaadaa. haddaba sheekh maxamed sadiiq ilminshaawi imtixaankaas ma laga qaadi doonaa mise waa loo diidi doonaa in laga qaado mise si kaluu ku gali doonaa? sheekh maxamed sadiiq ilminshaawi wadamada dibadda uu aaday muxuu u aaday? ma asaa iska baxay mise waa lasoo dalbaday? sheekh maxamed sadiiq ilminshaawi culummada casrigiisa joogtay maxay ka dhaheen? bal wax ka weyn jamaacati takfiir dadka gaalayn jiray waqtigiisa joogay maxay ka dhaheen ninkaas? xalaqadii lasoo dhaafay waxaan kasoo sheekaynay sheekha noloshiisa. intii hore dugsiguu soo dhigtay, meeshuu ku dhashtay, kadibna inuu qaahira yimid, kadibna oo la rabay idaacat alqur'aani alkariim qaahira, idaacadda ugu weyn oo qur'aanka kariimka ah. idaacaddaas in cajalkiisa ama tasjiilka laga sameeyo asiga ma rabin, laakiin dad kaloo meesha jooga ayaa rabay. dadka qaarkoodana way diideen, waxay dhaheen maya. meel kasta waa taqaana qofku markuu mashhuur noqdo, caalim ha noqdo ama wax kale ha noqdo, qof markuu magac yeeshto ama uu yeeshto qiimo yeeshto cadow badan uu yeelanaa. ama cadowgaas ha ku noqoto maseer ha noqoto ama xaasidnimo ha noqoto, labadaba waa noqon kartaa. qofku ka maseeri karaa, waxaa kaloo xaasidnimona way keeni. qofka maseerka okay waaye maadaama aysan ku gaarsiinaynin xad xaasid ay ku gaarsiinaynin, xaasidnimadaa xun. laakiin almuhim idaacat alqur'aani alkariim dadkii meesha jooga waxay go-aansadeen sheekh maxamed sadiiq ilminshaawi inuu duubo qur'aan, uu duubo xafsin can aasim inuu duubo. laakiin idaacat qur'aani alkariim qof kastoo yimaada imtixaana laga qaaday. raggii meesha wada jooga kullina is imaadeen waxay dhaheen macquul miya sheekh maxamed sadiiq ilminshaawi inaa imtixaan laga qaado? waa isfiiriyeen waxay dhaheen maya wallaahi ninkan imtixaan waa ka sarreeya. haddaan si kale kuu sheega waa sheekha keliya, sheekh alwaxiid oo idaacat qur'aani alkariim qur'aanka aqriyey asigoo imtixaan laga qaaday. maxamed khaliil alxusari caalimkii muqri'ii waan kasoo sheekeynay markii uu rabay inuu ka aqriyo imtixaana laga qaaday. waa sheekhaas weyn oo dabcan la yaqaano muqri'a, yani arday intaasoo ardayda leh markuu gala imtixaana laakiin minshaawi imtixaan lagama qaadin. sheekha marka qiraa'ooyin badan uu aqriyey, meesha idaacat qur'aan alkariim uu ka aqriyey, kuwait wuu tegay wuu kasoo aqriyey, suuriya wuu tegay wuu kasoo aqriyey, libiya wuu tegay wuu kasoo aqriyey, باكستان ووتاي وكسو أقري، حتى أقصى مسجد الأقصى ووتاي وكسو أقري إيه مالك على البضن. شيخ وقتي يسمر هو وقتي جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ولا يقانا نوحوها ديكتاتور وها قفكي كهري ما مدحو جوين جري حقيقة ده صاص واي. فذكر كل واحد كلين كاعتقاد سين هنا لقيا واحد قف كود انتي، لكن قفكي كهري ما مدح يسبنان كواي. مرك الشيخ كان وضل بدي معك. وحالي شيخ وحكوير جمال عبد الناصر أكوير محور ربع قرآن وأقرسد وحير القرآن كوالوي ماذا ما هين اللي مجي هذا وحكي الإجابة هي وتجا، لكن أنا أتجا قرآن وما أقرناه. هذا القرآن ربع أي ماذا ماشي أنا أقول لك يستو. ذاتك موالنت يعني جمال عبد الناصر واي وحور ربع هذا القرآن كلها كوين جمال عبد الناصر. مركي لوجي جمال عبد الناصر وحنا ذاتك ماشي جوا وحكونا هنين كان مقبول ليه هذا وحقلتكم المهم ورقص الصبي. إلهكم موسى سوس الذين ولما وحيد هالمركة إلهي وحو كحفدي وحاواش محمد قرآن كاسو إلهي كحفدي شيخا وحا مركزتو أمانو أما هوسو ليقو وحاواي دادك إيسكو ليفل يهين واي مثلا نين شيخا دو إنجنير أمانا أما وحو كشي وحو متريسو شيخا نينكا شهادة سيكرا نينكا لو شيخ إهواي نين عالم ما مركو قالت كيسي يسحيز الشيخ شيخ محمد متولي الشعراوي نينكاس عالم كلي قانو الله نحريستو وحو يري من أحب أن يسمع إلى خشوع القرآن
qofkii rabo inuu dhagaysto khushuuc alqur'aan qur'aanka sidoo loogu khushuucayo qalbi qur'aanka soo baxaya qofkii raba inuu dhagaysto ha dhagaysto sheekh maxamed sidiiq alminshawi sheekh abi isxaaq alxuweyni xafidahu allahu tacaala wuxuu yidhi maalin waxaan ku jirnay jeelkan ku jirnay waa noola wada xirxiray culamada waa la xirxiray saan kuu sheegay jamaal cabdinaasir iyo culamada jeelkay gelin jiray 1 sano 2 sano la iska day sabab la iska soo deynaa haddana wuxuu yidhi waxaa ku jira marka jamaaca takfiira la galno dhax dadka gaaleeyo ama meesha la galnay qof kasta agtooda gaal uu ka ahaayo dhahay aniga agtooda gaalaan ka ahaay madaxweynaha gaal shacbiga dhan gaalay ka ahaay marka waxay dhageysanayeen sheekh maxamed sidiiq alminshawi waxaan ku dhaho yiri sheekh maxamed sidiiq alminshawi gaal ma ah miya markaas ay dhaheen maya markaasaan muxuu aga duwan culimada kale aga duwan khaliil xusri waa gaaleyseen waxa waaye banna waa gaaleyseen cabdilbaasit waa gaaleyseen garkii xiray muxuu aga duwan وحول انت ما سمعتش القرآن لما يقرأ كيف يلمس القلب ما أركميا قرآن كمركو أقرنها يو قلبي إنه تابنا ما أركميا كاس واقع بسنين قالين ده لأن القرآن كيس مركو أقرنها قلبي جابوا بطابنا بو كاسنا ما قالين كرنو شيخة قراءة ديسة رنتي وقراءة قلبي تابنا يسرون أهانتي أنا وحان إذين كوانينا إنا دقيستان سورة طه أما سورة مريم لبضاس دقيستان والله سورة مريم مركو أقرنايو بالذات قيبت قدام بين مركو أقرنايو والله ويابيسا قرآن أنغام تسوء بدلايو مرو كل قراء مرعدكو سوء صودقا قراءة بدلا سريعكو أقرنا ودجنا والله بالله قرآن وحالنا لا نيسا معاني القرآن لنو لا نيسا لأن قف قرآن كمركو يقانو معاني كيدا يقانو آيات بالقرآن كماشي ودقا تي جيد وباهن تي قر وباهن تي بوبسيس وباهن آيات داس لقيسو بالذات لبضا الصورة آد ولقيسو أنا الشخصي أنا لبضا الصورة آدي إيتابتين قراءة ديسا من ذاتك مؤرخين تكمد أيا وحو يري مالين مسلم موسى أهين وذاتك قال هذا ومصر ودشتي أهين وحو يري وضدان سوى مراي وحان أهمقلين كانوا أقرنا سورة مريم وأقرنا قيبت قدام بيسو أقرناي وإلهي سبحانه وتعالى إنه سنعرور لهين حويري شقنا السعودي هل مرة استاغي وضح ووذي مركو دمي إن الذين آمنوا وسوقار وعملوا صالح بيش قدام بي مركو سوقاري حانا هايويري محوك أقرناي سيوح أجران وحان اعتقاسنا أنا دنا أكون فيه سوق الوضع وأنقضي حانا هايويري محا أقرناي سورة مريم وأقرناي وقرت أنا قال أهاي ولا كريستنا هلانا كريستنا كمصارد ماشي أنا وحكو قرطان علامة سليب كوكو سبويه كذب شيخي وحوي لسورة الأميض ويصاب اللعبة سورة يقو أقريه وحان أهاي حال ساعة كبضن يقو أقرناي إنه وقتي صعدوا إلى ما أهين مركزان أهاي هو ما هتسنتهي وابحي قرقان تجي مركو وحوي وحا اعتقادي مركا إنا مسلم أهاي وهاتي سيدين دين تكو قالوا لها قراءة ديسة حتى تتصو إسلامي سي شيخان مركا شيخان محمد صديق المنشاوي الدنيا والبميل والبحلال ماشي أقدم بيسي هذا شيخة انتو سلمني محاكو دعي مالي مال محكمة وحا عزومي مركنين ودادك وجهاء مقالة أي عزومي مركو عزومي عشكالة اعتينك سوا شيخ وايهوي كان متواضع اسكا أحاي وتجي نينك عنتظر كاريو أيا ويمت حول شيخو حول والله مركان كو أركي قلبي حنون ودح نينا إيمد لعو إسي وحون إلها عنتظر صم كدر سو شيخة لني عيسنا لك مركو حول قلبي جا إديدي انت ساهر بينا كو شيخي أصو جو سمين ويستاقو حول أحوى حنون سنة هاي وابحا ما ينا عنت ما وابحا ما إلا وإلا ينا عنت دوايه وير مركو حول سوقات خبز وسوقاته سيريو على صباح إلهي ساسوكو بدباديه شيخ مرمر شارع السودان وإيمان جري ومهندسين قفكي قاهري يقانو مالي أصو ماش إسكن مراي قميسكيس جلابيدي عايز إسكسو قادن جري أصو ماش مرا عمارة هو دار عمارة هو سيسكو جونينا ماشي مراي وحول بوابك عمارة ده ما تحي بوابك ومصاريد هديري يرا شقاد أوقوه غصيسو قفي بن آدم كشقايا واه مركز وير ها بواب كان أحي مركز وير كان مركز وير مي هذا مقرناي مركز نين أهد متواضع وحاي ولي سنين كان شهر مرات سنين حول مرات سنين wax maraasana idduunya iida soo raadsatay qof markuu ilaahay naftiisa siiyo adduunya iida ortiiso ayuu u iimaanaysaa maalintii la gaaray 20 juun 1969 waafaqsan
1358 sheekheena sheekh maxamed sidiiq alminshaawi tii ilaaha u timid. dadka qaarkooda waxay sheegaan nin ayaa ileeyey, wallahu aclam. markaan aqrinay qisadiisa, qaarkood waxay sheegaan nin ayaa ileeyey, wuxuu yidhi ninkan wuxuu leeyahay xanjara, waana la yaqaanin inuu yahay oo ilxun, asigana waa ugu talagalay maasha allahna muusan dhihin. markuu hadalkaas yidhi waxaa la yidhi sheekha isbuuc ma nooleen, wuu xanuunsaday. xanuunka marka hore xanuun uu qabay, xanuunkiyaa kusii ziyaaday, sidii ayuu sheekha ku dhintay. ilaahay subxaanahu watacaala sheekheena allah u naxariisto, jannat alfirdowsne allaha geeyo. qur-aanka rasuul sal ly slam wuxuu yihi qofka qur-aanka barto dadka baraa ugu khayr badane, dadkaasna allaha ku daro. ugu dambeyntii walaalayaal, waxaan rabaa su-aal inaan ku weydiiyo, meel kale fiirin, adigaan kula hadlooyahay. waxaan rabaa inaan ku dhaho sheekh maxamed khaliil, sheekh maxamed sidiiq alminshaawi, qof sidaadoo kale waaye, ibni aadam waaye, hooyii aabbaa dhaleen, caruurnimuu soo maray, laakiin magacuu ka tegay. adiga maxaa damacsanta inaad ka tagtid? magac ma ka tagi doontaa? qur-aanka ma aga tegaysaa? haddaa aga tegi karin xadiidka ma aga tegi karin? haddaadan aga tegi karin shariica alislaamiya, siyaasadda ma aga tegi kartaa? haddaan siyaasa aga tegi karin dadka caawinaadooda ma aga tegi kartaa? haddaadan aga tegi karin dadka soo islaamintooda ma aga tegi kartaa? adduunka waa furan yahay, majaalka waa furan yahay. diinta islaamka camal kastaa samaysid ajraa ku helaysaa. naftaada u diyaari inaad noqotid dadka ka tago legacy, wax lagu soo xasuusto. dadka noqdo ka tag, ha noqonin dadka markay dhintaan la hilmaamo. kolleyba waa dhimanaysaa, waa tegaysaa, adduunyada waa ka tegaysaaye wax lagugu soo xasuusto ka tag. khayr allah ku siiya, jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waa inuu isniinta soo socoto iyo qof kaloo culus, aada u culus, aada u culus, adduunka dhan wax badan ka bedeli. tookadan siyaasaan gelayna, adduunka bedeli, 3 qaaradood isku xukumayay. magaciisa markii la maqo laga baqi jiray, ilaa yowmina haadaa kongareeska magaciisa xataa uu ku dhegan yahay. ninkaas haddaa harti inaa ogaatid wuxuu yahay iyo wuxuu qabtay, waa inuu isniinta soo socto qofka ugu horeeya noqo.